asagayga iskuulka soo yaacay marka arka Allah dee abay nolol laha waxa baran laha sayid hadda buugay u wataana wada laha diilaha dee markaan arko dadkii iskuulka soo baxaya gabdha asagayga iskuulka soo yaacay laakiin wayna dhicin Soomaa hadduu abay la joogi la garabkayga joogi laha maan waxaan baran laha qof hadduu sikal biya wada maqaaxi ku jiro عند أنا كاسق بيكين شقة ربي مركان ويديو وأكو قبصة بيان كسق بونتو أما بونتون بيدرا أختي آد بيقول عيلي واحد كده معلن والله وأسيق قرصة دروفاي جي معلومة هيجا ما يرى قرصة واحد كده معلومة أنقضوا عن علوش أنت حتى سكسي هذه كي معلنتي ما واحد كده معلن عن قراعن معلن عن شين معلن عن قدينين وان قرصة وحس ليه دسكو يكون حداد قف وحويدستي maanta waxaan dhaa ilaahay qof gacan bila aad kuma bado ilaahay baan iska bariyaa salaadayda waan tukadaa maalmuhu igu adag yahay gabar yar oo maalmaha ku adag oo maalmuhu ciileen baan danina waxa rabaa in madaxweynaha dani waxaan ku leeyahay madaxweyne dani adiga madaxweynaha Soomaaliyeed waxa rabaa in ay caawisid gabar yar waxaan ahay waayuu waqti ku adkaaday taqaana waxaan dhaa dadka meydii shaqeeya waxay gacanta ku hayaan baa ka qabtaa iyadoo dhahay gadaab ma yahay shaqeynay shaqo maraba baayo waqtiga igu adag gabar yar waxaan aabaheed ilaa hadii uu arag wax ma baran adigu inta salaadan ku dukan la iyo taxiyaadka waan garanaya wax ma baran si khaasa Soomaaliga ma akhrin aqaano waxyaalahaas ma aqaani ma baran meesha jirtaan badhamaantiina waa salaamay waa gabadhii caanka ahayd Sabriin Kamaal ku magacdeen horta anigu waan fiicanahay abay wax ma baran anigu aabahay anoo yar oo 12 jira baa igu dambeysay in aragtidiisa oo indha saaro aabahay waqtiga ku yara adkaa wuxuu aaday maxal lahayay wuu taaribay magafiiba mid qabtay oo dilay ma garanayo ma sheekaro inuu biyo ku dhintay ilaa hadeertan geeriyo dhimasho wuu dhaxeeyaa labadaas wuu dhaxeeyaa wallahi wuuna dhinta ma dhihi karo wuuna nool yahay ma dhihi karo aabay hadduu xagan iga daawanayo fariintii hadduu nool yahay ilaahay cumri dheer ha siiyo abaalkiis ma soo koobi karo aabay waan jeclahay inkastoo isagu soo karin hooyadii ay soo karisay hooyadii cumri dheer Xaliimo Ali Ibrahim xagan aan ka salaamay hooyadii macaan waxaan leeyahay cumri dheer iyo mataqaana farxad badan ilaahay siiyo iyo caafimaad badan waxaan ku leeyahay adduunyo aakhira wax lagu jeclaado sida ay soo koriso xagan iisoo aaba hooyadii baa soo korisay inkastoo aabay geeri nolol u dhaxeeyo mar arko waan jeclaan lahaa ilaahay ay rumeeyada markastana rajadii kama soo dhigin waan wadaa wali hamigii in aabay arko wali way ugu jidaa ilaahay baa weyn oo waaxida ilaahay hayso ilaahay baa mahad iska leh hadeertan u 15 jir baan ahay gabar yar baan ahay wali waqtigay waan haystaa inaan wax barto waxaan rabaa inaan shaqaysto markaan shaqaan waayay inaan hal mar geed isku xiraan rabaa markii inaan geed isku xiro wax yar baa ii harsan waqtiga igu adag gabar yar waxaan aabaheed ilaa hadii uu arag wax ma baran adigu inta salaadan ku dukan la iyo taxiyaadka waan garanaya sida lacagta loo diro waan garanaya laakiin wax ma baran si khaasa Soomaaliga ma akhrin aqaano waxyaalahaas ma aqaani ma baran arday markaan arko dadkii iskuulka soo baxaya gabdha asagayga iskuulka soo yaacay marka arka Allah dee abay nolol laha waxa baran laha sayid hadda buugay u wataana wada laha diilaha laakiin wayna dhicin Soomaa hadduu abay la joogi la garabkayga joogi laha maan waxaan baran laha ardayad baan noqon lahaa xilligan jacayl iyo waxa ka sheekeen ma joogeen baan ugu waxaan joogaa xilligan buug iyo qalin gacanta ku qabsan lahaa waxaan joogaa xilligan wax baran lahaa waxaan joogaa xilligan dalkayga aan wax u qaban lahaa waxaan joogaa xilligan wasaaradaha iyo meelaha wax ka shaqaysto gabar wax baratay oo meel ku soo baxday oo caalamka dhan jecel inaan noqdo waan jeclaan lahaa